marka laga soo tago bilicda iyo quruxda uu deegaanka ku soo kordhiyey waa goob cibaado masjidka al-umma oo 2 sano ee la soo dhaafay dhismihiisu uu cadaado ka socday aadaankii ugu horreeyay ee salaada maqrib ayaana laga oogay waa mid ka mid ah masaajidada ugu waaweyn gobolada dalka waxa uuna qaadaa halkii mar in ka badan 1500 oo ruux waxaana xariga ka jiray madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole munaasabad ay ku sugnaayeen inta badan golaha wasiirada Galmudug iyo xubno baarlamaanka ka tirsan waxa ay indhayn ku sameeyeen qaybaha uu ka kooban yahay markaskan waxa ayna bogaadiyeen sida quruxda badan ee loo dhisay xarig jarka dhismaha markaska kadib waxa la qabtay munaasabad lagu weyneynayay xarig jarkiisa waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda abwaana culamaa u diin maamulka degmada Cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka duqa degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ayaa sheegay in dhismaha masjidkan uu magaalada ku soo kordhiyay bilic wanaagsan baraka group oo hirgeliyay masaajidkan oo Dayib Sheekh Cabdullaahi uu raggii nagala joogay oo barnaamijka soo gaabinay oo kamid ahaa waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin dhammaan culimada aad u mahadsantihiin madaxda aad u mahadsantihiin xafladii markaska iyo masaajidka waa noo furan tahay ugaas Farxaan Maxamed Dhoore iyo Xaaji Dayib Sheekh Cabdullaahi ayaa ka sheekeeyay marxaladii uu soo maray dhismaha masjidkan sida darteed marka qof walba inta uu haysto inuu Ilaahay xaqiisa u hormarsado dabcan masjidku waa sadaqa jaariya idii dhisatay ama bixisay hadii Ilaahay dartii ula jeeday Ilaahay bay amaalkiisa ka helaysaa laakiin waxa intaan kulmiyay waxa weeyaan waxa kamid ah deegaankii laftiisii in dib loogu soo laabto masjidkan waxaan ugu talagalnay halkii mar inay ku tukan karaan 1500 qof 1500 qof baa ku tukanaysa wuxuu leeyahay saddex jida dhinacyada ka marta dhinaca afraadna annaga u gadno waa boos isugu leeyahay baakinaan ugu talagal saddexdaas qaybood waa looga tukan karaa wuxuu kaloo leeyahay laamiga uu saaran yahay ilaa godol laba inta ka dhaxeeda jaamacadu waa la xiriiri karaa marka meelaha ciidaha iyo xafladaha intaasuu leeyahay wuxuu kaloo masjidku leeyahay qaybta dumarka waxyaalaha kambanigan markii ugu horreeyay uu soo jeedinayo waxa ka mid ahayd inaan gabdhuhu meel ay ku cibaadaystaan inta badan ay xoogaa ku yar tahay magaalada markaska marka waxaan ku darnay qayb dumarku ay ku tukan karaan ku cibaadaysan karaan musqalaha iyaguna waa sidoo kale way diyaarsan yihiin meelihii weysada loogu talagalay iyadana way diyaarsan yihiin maxamed cabdullaahi tiicay madaxweynihii hore ee maamulkii Ximaniya Xeeb ayaa maamulka shirkadda Baraka Group oo masjidkan suura geliyay dhismihiisa uga mahad celiyay dhismaha goobtan cibaado anigana runtii mid kale ay sii dheer in deegaankan onuga meeshuu ka yimid haddana meeshuu joogo in masaajid intaas leeg oo runtii aad qiyaasi kartid magnitude-ka uu leeyahay waxaan isleeyahay masaajid la mid ah inuusan degmooyinka Soomaaliya ku oolin inkastoo degmooyin aan tigin ay jirin laakiin inta badan aan isleeyahay aan wax reebto waxay ku tusinaysaa inuu bilicdii deegaanka soo kordhiyay shaqo abuuris inuu sameeyay in maaragtay uu soo kordhinayo jiil cusub oo waxbarasho u baahnaa inuu meeshii wax lagu baro maadaama meeshii uu markas yahay sida darteed faa'iido badan ayuu ku soo kordhiyay deegaanka Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo xiray munaasabada xarig jarka masjidkan balse halka arrin ayaan rabo inaan halkan ka sheego waxa weeye waa mahad celin iyo dhiirigelin aan u sameynayo Baraka Group uu hogaaminayo walaalkeen Dayib runaantii shaqo fiican oo guud ahaan Galmudug lagu farxaday aad qabateen masaajidkan wuxuu noqonayaa masaajidka ugu weyn Galmudug xaqiiqdii deegaano badan oo Galmudug soo maray masaajid aan u dhigo ma lahan hadduusan Soomaaliya goboladeeda kaalin fiican ka gelin waxa weeye guri ayaad ka dhisateen jannada
ilaahay dhaqaalaha idinka galayna meel kale ha idinka siiyo. cabdirasaaq alcadaalo, warbaahinta Goobjoog, Cadaado.